ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab waa awoodda sida tooska uga hortagta dhagaraha cadowga iyo dibindaabyooyinka argagixisada waxayna ku beegsadaan fariisimahooda kobaca iyo tababarsiintooda dowladda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay markasta ku dhawaanshiyaha inay soo laabato Soomaaliyeed la yaqaanay dugsiga tababarka Balidoogle ayaa tababar loogu soo xiray saraakiil xigeen laga kala keenay ururada ay ka kooban tahay guutada 16aad ee kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabada xiritaanka tababarka waxaa ka soo qayb galay madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxa hoggaanka howlgelinta madaxa hoggaanka qorsheynta iyo kaambineedka taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab taliyaha ururka 64aad guutada 7aad qaybta 12 Abriil iyo taliyaha ururka 4aad ee danab iyo saraakiil ka socotay howlgalka Atmis saraakiil xigeenadan tababarka loo xidhayay ayaa ugu horeyn soo bandhigay dowladus heerkiisu sareeyo kaasi oo ka turjumayay awoodda kumaandooska xoogga dalka madaxdii ka soo qayb gashanay aad ayay ugu riyaaqeen ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay taliyaha guutada 16aad ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare kaasi oo ka sheekeeyay tababaradii kala duwanaa ee ay qaateen guud ahaan guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab taliya maantay waxaan nasiib u yeelanay saraakiil xigeen geesiyaal ah aqoon-yahano ah karti leh daacad ah u soo diyaar garoobay marxaladda dalkana ku jiro inay ka saaraan taliya tababarka guutada kumaandoosta danab xilliyadii 2022 waxaan sameynay horumar weyn meelaha gobolna aan ka gaarnay isku filaasho taliya tababarada guutada kumaandoosta danab ay diyaarisay ee haddana hirgalay ee lagu guuleystay ee mirahooda la arkay waxaa ka mid ah hogaaminta qaybaheeda kala duwan oo ay sameeyaan danab oo la isku keenay meel kasta ay joogto iyo danab oo la sameysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intiisa kale taliya waxaan qaadanay koorsooyin iskugu jira taliya heer taliya urur ilaa taliska guutada taliya horin ilaa taliya unug taliya koorsooyinka dhammaantood oo maanta ugu dambeysay koorsada hadda aan ku jirno oo maanta noo dhammaanaysa oo saraakiil xigeenka ah taliya sidoo kale koorsooyinka noo hirgalay oo noo qabsoomay oo miraheedan aragnay waxaa ka mid ah xirfadaha ciidanka sida gaarka ah wax ugu tara oo la dhaho takhasusiga ama isbitaalista waxaan mahad gaara u jeedinayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu dhiirigeliyay inay shaqadaanu sida ay tahay ku socoto oo gacmahanaga sida ay laba ugu yihiin shaqadana laba uga dhigno midna cadow kula dagaalano midna ciidanka dib ugu dhisno madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Ciise Axmed Wehliye oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa saraakiil xigeenada kula dardaarmay inay ilaaliyaan wixii halkan ay ku barteen isla markaana waxa uu siiyay talooyin wax ku oola askariga magaca guud ee askari waa wadaagnaa kulli ama ciidan cir ahaw badda ahaw dhulka ahaw ciidamada kala nooca qaybta adeega ahaw qaybta dagaalka ahaw qaybta mataqaana maarta kuleenta ahaw magaca askari waa naga wada dhaxeeya laakiin waxaa la kala leeyahay maamuus iyo waajibaad runtii danab markaa maqasho magaca danab kumaandoos ama quwata saaciqa waxa waayey waa kuwa ugu horeeyo ee lagu faano ay ku faanaan ciidamada dhulka qodob ka dhiman oo labadaas qodob askarinimada dhanba labadaas qodob way inta ka keen labadaas hadii laga waayo askari ma jiro mid maxaa waaye waa waqtiga iyo dishibliinka muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay horumarka baaxadda leh ee uu sameynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska danab tababar ahaan iyo qalab ahaan iyadoo gobolada dalkana ay ka wadaan baacsiga argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab waa mid ka mid ah awoodaha uu ku faano xoogga dalka Soomaaliyeed
waxay leeyihiin taariikh lama ilaawaana. kooxaha argagixisada oo dhibaato u geysta shacabka ayaa baqdin dareema marka ay maqlaan magaca kumaandooska danab. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, xerada tababarka kumaandooska danab Balidoogle, gobolka Shabeellaha Hoose.